mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee cud ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadlay ku-xigeenkii xogayaha warfaafinta ee xisbigaasi oo muddo ku siman 7 maalmood u xidhan ciidamada booliska ee Soomaaliland. xogayaha warfaafinta ee xisbigaasi Yuusuf Kayse iyo sidoo kale Maxamed Cali afhayeenka xisbigaasi ayaana xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay xadhigga mas'uulkaasi iyagoona baaq u diray laamaha garsoorka. waxaan maanta doonaynaa inaanu ka hadalno xogaye ku-xigeenkii warfaafinta ee xisbiga wicid oo maanta ay 7 cisho oo maanta ay 7 u tahay xadhiggiisu isagoon maxkamad la geenin 7 cisho ayaan doonaynaa maanta inaanu halkan kaga hadalno. sideen wada ogsoonahay xukuumadda maanta afar jirsatay ee talada dalka haysa waxa ay caan ku noqotay xadhigga siyaasiyiinta, saxaafadda iyo bulshada rayidka ah. waxaynu ka warhaynaa warbixintii 2009 la soo saaray ee dadka 90 qof ku dhow hal sano kaliya isla 2019 oo kaliya la xirxiray ee hay'adda xuquuqul insaanku ay soo saareen in 90 qof la xiray waa 2009 oo kaliya tiyuun baa sii socota. aad iyo aad baan uga xunnahay. waxaan halkan u nimid inaanu ka cambaarayno markii labaad hore waxa uga hadlay xogeeyaha arrimaha gudaha, maantana waxa ka hadlaya anigii afhayeenkii xisbiga. waanu cambaaraynaynaa, waanu ka xunnahay. waxaanay foolxumo ku tahay nidaamka dimuqraadiga, waxay tahay dastuur jabin, waxay tahay xeer jabin. waxaan ummadda u cadaynaynaa iyo beesha caalamkaba in xarigga lagu haysta xogeeye ku-xigeenka warfaafintu uu xaq darro yahay isla markaana awood sheegasho yahay. haddaynu xasuusteena dib u celinno madaxweynaha imika jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, haddaynu dib ugu noqonno taariikhdiisii waa aragteen in badan ama madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Ilaahay ha u naxariistee xukuumaddiisii ha la hadlo ama madaxweyne Daahir Yaalla ha la hadlo ama tii ugu dambeysay madaxweyne Siiraanyo ha la hadlo isagoo in badan ka caraysan oo la xarigga siyaasiga waa wuxuuna la joojiyo xukuumaddu ha joojiso. waxaan tusaale u soo maantana tiibaa taagan. waxaan leeyahay madaxweynaha maxay iska bedelay markuu gudoomiye ahaa iyo maantuu madaxweyne yahay, bal waxay iska bedelay aragtidii maalintaa uu qabay baan anagu xisbi ahaan qabnaa. waxaan soo qaadanayaa hadalkiisii ugu dambeeyey markuu mucaaradka ahaa ee uu kaga hadlayay nin fikirkiisa taageersanaa oo xidhnaa. hadalkiisii oo aan qoraal ku soo sameeyey waxa uu odhanayay xarigga siyaasiga ahi waxaynu ognahay inuu colaad nac iyo xumaan mooyaane aanu wanaag keenin. waxaan leenahay ayuu wakhtigaa yidhaahdaa madaxweynuhu xariggaasi waa gef, waa in si degdega loo soo daayaa, xorriyaddiisii hebel loogu soo daaya. haddaba waxaan leenahay xariggaa iyo xarigga kale muwaadiniinta lagula kacaabo waa sharci darro wixii aan sifo sharciya loo marin. muwaadiniin baa imikadan nin muwaadina oo welibana caaqila ayaa muddo 9 bilooda isna xidhan. xariggaa soo noqnoqday waxa uu foolxumo iyo ceeb ku yahay nidaamka dawliga ee aynu qaadanay dimuqraadiyadda. haddaan yaro dhex galo xarigga xogeeye ku-xigeenka warfaafinta mudane Saleebaan Cawaale Good muddo 7 cisho buu xidhan yahay. waxa uu ku xidhan yahay saldhigga dhexe Boorame. sifaha xariggiisa loo maray waa sharci darro, waa xaaraan. maxkamad ilaa imika la horgeeyay ma jirto. arrintaa haddaba dastuurkeenna qodobka 25aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu leeyahay qodobkiisa koowaad farqadiisa koowaad wuxuu leeyahay qodobka 25aad farqadiisa koowaad qofna xorriyadiisa lagama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn. isla farqadiisa
waxay jabiyeen isla farqadiisa xa iyo ja oo iyaguna si cad u sheegaya qofka in 48 saacadood gudahood in maxkamad la horgeeyo maanta 7 cisho marayso axadii baa la xidhay ilaa imika maxkamad la geeyay ma jirto markaan waraysanay isla markaana xoogaan u noqonnay waxay ku haystaan waxaan ogaanay hadal uu ka jeediyay oo ku dhaliilay barasaabka iyo taliyaha qaybta uu ku dhaliilay shaqadooda in lagu haysto arintaa waxaanu aragnaa inay arjoogdha tahay inay tahay caburin horle inay tahay waa ogeydeen gobolka Awdal doorashadii macal madax dhaqameed bay gaadheen la xidhxidho iyadoo lagu haystay hebel maxaa u sharaxaysa ucudahan xarig kasta oo aan sifo sharciya loo marin waanu ka soo horjeednaa ama xogeeyo ucida ha noqdo ama qof muwaadin ha noqdo ama qof saxafi ha noqdee mar walba waanu ka soo horjeednaa waana xaraan baan leenahay imikana waxaan leenahay xorriyadiisii si degdeg ah loogu soo celiyo dastuur jabin baa dhacday isla sidoo kalena waxa dhacday xeer jabin oo xeerka xeer foodhin waxa uu sheegayaa xisbiyadu inay u sameeysan yihiin in dhaliisha xukuumadda ay sheegaan sidoo sheegayo qodobka 8aad xarafkiisa xa xisbiyadu waxay xaq u leeyihiin in mas'uulka markaa xilka haya la dhaliilayo isla markaana haddii aanu shacbiga waxba u qaban la sheegayo tooshka lagu qabanayo ugu dambeyntii dhaqankan xariga ahi ee walibana xukuumadii hore waynu arki jirnay xarig xukuumadan laakiin maanta talada haysa dhaqan kale ku soo kordhisay xariga dhaqankaasi waxa weeye qofka maxkamad la geenay lama geenayay waa la iska haysanay maxkamad la horgeyn maayo intii la doonaa la haysanaya marka dambana waxa la oranayaa ama waxa ka noqo ama raali gelin bixi ama dib ha u hadli waa dhaqan nagu cusub weey oo xukuumaddu ku shaambadaysan tahay weligeedna aan ka gooy doonin taariikhdan uu geli doonta in qof muwaadina la iska haysto intii la doono la hayo marka dambana la iska sii daayo waxaan hadaba halkan baaq uga dirayaa maxkamaduhu waa cidii u garsoori lahayd shacbiga xisbiyada iyo xukuumadda wadan kasto tagto maxkamaduhu waa hirgeliyayaasha dimuqraadiyadda marka sifa xaaraan qofka lagu soo xiro iyaga oranaya hebel la sii daayo sifa sharci darraba lagu haystaa hadaba baaqa ugu dambeeyaan dirayno waxa weeye in garsoorka Jamhuuriyadda Soomaaliland na tusaan madax bannaanidoodii inay ka madax bannaan yihiin xukuumadda inay cadaalad u xaqsooraan xukuumadda iyo shacbiga Soomaaliland baaqan u dirayna waxa weeye gudoomiyaha maxkamadda sare oo runtii aan ku amaanayo doorkii muuqday ee uu ku lahaa doorashadii ina dhaaftay ee xariga nin wasiir xidhay isagu sii deynayay mar walba isaga iyo maamulkiisa goboladu oo ku amaanayo in maantana roolkooda ay qaataan oo muwaadinka 7 cisho aan maxkamad la horgeyn ay sida sharciga iyo xeerarka dalku sheegaya ay sameeyaan ugu dambeyntii madaxweynaha waxaan leeyahay xukuumadda adiga horgala u ah qofka muwaadinka ah meeshuu doono gobolka Soomaaliland ka joogay ee xaq darro lagu haysto cidda koobaad ee xaq darradaasi dhakada ka fuulaysa waa adiga waayo adiga madaxweynaha qaranka ah mas'uuliyiintaada ku tagrifalaya ee ka xanaaqaya dhaliisha marka ummaddu soo bandhigto ka xanaaqaya dhaliisha talaabo ka qaad baan leenahay sida sharciga iyo xeerarka dalku sheegayaana yeel baan leenahay waxa weeye maxkamaduhu marka qofka loo keeno un bay xukumaan ama sii daayaan laakiin booliiska kan intuu qofka qabto iskaga haysanaya stationada khaladka u weyn cadaalad darrada halka ka dhacda waa booliiska waxaan leenahay commissionerka haysta iyo gudida golaha
baarlamaanka waxaan leenahay xeerkii dib ha loogu noqdo loo madax banaaneynayay in qofka bini'aadankii haddii dembi laga galo ninka booliiska ah ma haddee wax cirka ka soo degay waa qofkaa ilaalinaya danta ummadda hadduu qofka ku xadgudbo ciddii looga ashtakoon lahaa waa in commissionku loo sameeya commission gooniya oo qofka booliiska laga dacwoodo bini'aadanka oo dhan booliiska haddaa qabataan waa laga dacwoodaa oo adiga booliiska maxkamadda idin dhaxaysa laakiin maaha booliiska waxaan la taaban karayn marka muwaadinka waxaan leeyahay ha la sii daayo xuquuqda xisbiyadana ha la ilaaliyo ta muwaadinka ha la ilaaliyo ta saxaafadda ha la ilaaliyo ta bini'aadanimada ha la ilaaliyo ugu dambeyntii waxaa xusid badan hadalka mas-uuliyiintan uu ku soo beegmayo iyadoo muddo toddobaada uu xidhan yahay mas-uulka ay u hadlayaan inkastoo ay sheegaan in mas-uulka loo haysto sababo la xidha inuu dhaliilo u jeediyey gudoomiyaha gobolka Awdal وخضر إسماعيل محمد خضر نبال iyo Badr Muxyidiin wararka muqbaahiya caalamiga Som News Hargeysa